indhaha naga walaale waxaan ku aragnay degmada ugaadh badan baa soo gashay oo wakti badan hadda ay ugu dambeysay xilliyadii colaadaha. waxa weeye degmadan Badhaadhe sideedaba waxay ahayd degmada ugu ugaadha badan bay ahayd. magaalooyinka iska mushaaxi jirtay oo nooc walba iyadoo leh jeriga, maroodiga, harowlaha, siiga, shabeelka, libaaxa, maroodiga, wax badan ayagoo aan noocyo badan leh ayay joogi jireen. xilliyadii colaadahayna ka baxeen, haddana aad bay ugu soo noqonayaan dalka, marka aad bay ugu soo noqonayaan. bal waxaad faahfaahin naga siisaa duurjoogtan ilaa waktigay soo laabanayeen? ilaa waxay soo laabanayeen maxaanku idhaha 2003 laga bilaabo ilaa hadda kolba nooc hor laan arkayna. hadda waxaan dareennay aad bay usoo gelayaan, xawli bayna ku socdaan, way soo gelayaan noocyo badan oo maxaanku idhaha aan arki jirnay oo dalka ka maqnaa baa soo gelaya. dhankay ka soo gelayaan marka? dhankan Kenya ka soo noqonayaan, annaga iyo Kenyada noo dhaxaysa maxaanku idhaha duurka la yidhaahaa badamadowday ka soo noqonayaan, dhulkaasay ka soo noqonayaan, aad uga imanayaan. maxay tahay sababta ay u soo noqonayaan? sababta kolley laba siyoodba way tahay. xagga nabadgelye ahaanta hadda way tahay, xaggan xuduudka Kenya oo laga soo wado oloola qolyaha al-shabaabka lagula dagaalamayana way jirtaa iyadana, oo diyaarada iyo lugba lagu soo sifaynayo. ugaadhan ma waxaad u aragtaa ugaar Soomaaliya markii hore ka tagtay oo soo laabatay, mise waxaad u aragtaa ugaar dalka Kenya ka baxday? maya, ugaadhani waxa weeye ugaadhii joogi jirtay dalkan weeye. waxa weeye dalkan Soomaaliya ay ka baxeen oo markii hore dhulkan ay joogi jireen, degmadan Badhaadhe ay joogi jireen. horey waxaan u maqli jirnay qaxooti Soomaaliyeed baa dib dalkii ugu laabtay, haddana waxaan maqlaynaa in ugaadhi ay laabanayso. marka ma ula dhaqmaysaan sidii ugaar dalkeeda ku soo laabatay, mise damac inuu idinka galaaba laga yaabaa? maya adeer, ciidamo ilaaliyaan u samaynay, kawaan baan samaynay si loo ogaado hilibka la cunaayo noocuu yahay, inuu xoolo yahay iyo inuu ugaadh yahay loo ogaado. sidaasaan ku kala bixinaynaa, sidaasaan ugu ilaalinaynaayo 24 saac kontaroolkooda iyo ilaalintooda iyo wixii xabad dhacaya ayaanu ilaalinaa. marka aad baanu usoo dhaweynaynaa ugaadhan maaragtay aan lahayn noo soo noqonaysa. siyaabahan aad sheegtay waxaad ku kontarooli kartaan dadka magaalooyinka jooga. maxaa tallaabooyin ood ka qaadi kartaan dadka miyiga jooga iyo baadiyaha fog? dad baa noo jooga dhulka degmadana dee maamul bay leedahay oo xukumo oo maaragtay kontaroolaya oo taleefana lagu wada xidhiidhaya. dad baa noo soo warramaya oo aan samaysanay, marka wixii wax dila waanu la soconaynaa. howlgalkan Kenya ka socda haddii uu dhammaado ma laga yaabaa inay Kenyadii ku soo noqdaan? maya, oo dalkanaga waxa weeye dee amni buu sii noqonayaa oo wuu soo hagaagayaa amnigiisa. dadkii ugaarsanayeyna dee maaragtay Soomaaliya ahaana dee xukun baaba ka soo baxay oo amar baa la siinaya inaan la dilin. marka ma filayno inay noqonayso hadda. duurjoogta qaar baa halisa sida libaaxa iyo dhurwaaga, dadka deegaankuna waa xoolo dhaqato. marka sidee baad u kala badbaadinaysaan? waxaan ku kala badbaadinaynaa, dadku waa dad la xukumo oo hadda dawlad yeeshay weeye. awal dee dawlad la-aan baa jirtay oo nin waliba wuxuu arku iska dilayey. kuwa xitaa magaalooyinka joogaa la iska dilayay oo waa run, laakiin hadda dee amar baa jira oo xukun dawladeed baa jira. marka amarkaa dawladda unbay qaadanayaan dadku. dadka iyo xooluhu way kala yihiin. haddii uu dad cuno waa lala dagaalamaya libaaxa iyo dhurwaaga, laakiin wixii xoolaha waxa loo dili karaa ma jiraan. weliba si khaasa oo adag amarkeedu wuxuu u jiraa inaan ugaadha kale aan waxba cunin, ayada in la cuno mooyaane in aan la taabanin oo lasoo dhaweeyo oo weliba loo sameeya meele ay ka cabaan oo ceelasha maaragtay loo fasaxo oo biyaha loogu shubo maaragtay baraagaha si ay dalkoodii maaragtay ugu soo wada noqdaan. marka dadka xoolahooda la cuno ma awoodaan inaad magdhow siisaan? waa laga soo saari doonaa haddii amar la bixiyo. kolley qaab uun baa markaa loo samaynaya haddii ilaahay yidhaaho wasaaradihii ay si fiican maaragtay ay u shaqo galaan. kolley waxa weeye hadda waa amar guud oo inaan la dilin weeye. marka haddii ay wax dhibaanna kolley dee dawladda unbaa si dhihi doonta dadka ay wax u geystaan.